بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalyaal markale waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii nutritionka iyo dietka ama cuntada iyo nafaqada maantana waxaan rabaa hadduu alla idmo in aan xaqiiqdii idila wadaago cashar aad iyo aad muhiim u ah casharkan cashar dad badan ay soo weydiiyeen waaye wuxuuna ku saabsan yahay farqiga u dhaxeeyo ee lagu kala garanayo cuntada caafimaadka leh iyo cuntada aan caafimaadka lahayn marka cilmiga maanta aan rabo in aan idila wadaago waxa waaye farqiga u dhaxeeyo cuntada aad cunaysid ee caafimaadka leh iyo cuntada aad cunaysid ee aan waxba kuu tareenayaan caafimaadka lahayn kow waxaan rabaa inaad ogaatid cuntooyinka waxa u kala baxaan laba shay ama laba magac ayay kala leeyihiin cunto waxaa la yiraahdaa waxa ku jirta laguna magacaabaa macronutrients cunto kalena waxaa la yiraahdaa micronutrients marka waxaa farqiga u dhaxeeyo waxa waaye tan hore e ayay leedahay tan dambana ayay leedahay marka waan sharxi doonaa wax ay ka kooban yihiin iyo waxa laga helo balse marka hore waxa waaye macronutrients waxa la yiraahdo ayaan rabaa insha Allah inaan la wadaago macronutrients haddii la maqlo waa cuntooyinka ay ka kooban tahay kaliya proteinka faatka iyo carb proteinka waan ka soo hadalnay waa maado qofku u baahan yahay maalintii inuu cuno waxay proteinka wuxuu taraa lafaha wuxuu taraa mantaqana murqaha waa waxa qofka ka dhigaya inuu socdo marka cuntada proteinka haday leedahay proteinka aan ka hadlaynana waa proteinka la yiraahdo good proteinka la yiraahdo waa good proteinka wuxuu ka yimaadaa proteinka fiican wuxuu ka yimaadaa geedaha iyo mataqaana cuntooyinka plant based diet ka la yiraahdo cuntooyinka dhul ka soo baxa ama cuntooyinka vegetables ka qudaarta ama sida mataqaana cuntooyinka qamadiga ayuu ka yimaadaa sidoo kale macronutrients cuntada la yiraahdo waxa kale oo ay ka kooban tahay fatkan waxa waaye aan ka hadlayo loo baahan in cuntadu waxa waaye healthy faatka fiican sida faatka avocado ka yimaada sida faatka ka yimaada ma garanaysaa peanut butterka ama looska oo kale ka yimaada iyo cuntooyinka noocaas oo kale faatka ka yimaada sidoo kale waxa waaye carbka aan ka hadlayo waa carbohydrate aan ka hadlayo waxa la yiraahdaa complex midka kale aan fiicnayn waxa la yiraahdaa simple marka carbkan waa carb jirkaaga si fiican u galaya si miisaan la u galaya ku siinaya sonkorta u baahneed ku siinaya wixii aad u baahneed marka macronutrients hadaa maqashid cuntadaas waxay ka kooban tahay saddexdan shay micronutrients haddii aad maqashid waxay ka kooban tahay laba shay cuntadaas waxaa ku jirta vitamin fara badan sidoo kalena waxaa ku jirta macdan fara badan minerals fara badan ayaa ku jirta marka cuntada haddii aad cuntada cunaysid ay tahay macronutrients haday tahay saddexdan ay ka kooban tahay cuntadaas waxaan rabaa inaad bedeshid because cuntada fiican sida lagu garto waxa waaye labadan shay markii la isku daro macronutrients iyo micronutrients markii la isku daro ayaa waxay soo baxdaa cunto nafaqo leh percentage-ka aad ka cunaysid labadana waa idin la wadaagi doonaa hadduu alla idmo now waxaan rabaa markii aan ka hadlayno micronutrients in aad boqolkiiba 50 aad ka cuntid micronutrientsna in aad boqolkiiba 50 aad ka cuntid marka cuntada cunaysid waa cunto ay ku jirto protein fiican qudaar ay ku jirto qamadi ay ku jirto ukunta hada cunaysid ukunta organic ay ku jirto fruit hada cunaysid fruit mataqaana fiican ay yihiin oo mataqaana organic ah marka waxaas markii la isku daro waxa ka soo baxayo cuntadii u baahneen ee healthy ah kan kaliya hadii aad ku ekaatid cuntadii aan caafimaadka lahayn ayaa jirkaaga u badinaysa waana laga fiican yahay marka hadii aad rabtid cunto caafimaad leh inaad cuntid waa in aad labadan qaybood ee cuntada kamid ah aad cuntid marka waxa waaye muhiimka aan saas u leenahayna waxa waaye mar walba waxaan rabnaa cuntada aan cunayno quality-geeda in aan kor u qaadno ayaan rabnaa quantity-gana aan yareyno marka quality-gan kor u qaadaynaa quantity-ga inta badan cuntada badan aan cunaynan waa yareynaynaa marka maxaa meeshaas ka baxaya waxaa ka baxaya cuntadii sonkorta lahayd waxaa ka baxaysa cuntadii pastada oo kale ahayd oo burka cad laga sameeyay waxaa ka baxaysa cuntadii mataqaana saliidda laga sameeyay iyo cusbada laga sameeyay waxyaalahaas oo dhan cuntooyinkii process-ka ahaa dhaxda ayay ka baxayaan looma baahna sababta ah labadan haddaan isku darsanno cuntada aan cunayno quality-geeda ayaan kor u qaadaynaa quantity-ga hoos ayaan geynaynaa sidoo kale waxa waaye
carbohydrate haddii aad rabtid inaad cuntid wax macaan haddii aad rabtid inaad cuntid haddii aad rabtid inaad cuntid ice cream haddii aad rabtid inaad cuntid mataqaanaa wax saliid leh ama sonkor leh ama la qasay haddii aad cuntid waxaan rabaa in aad ka dhigatid boqolkiiba 10 wadanka aan joogno ama meelo badan oo qofku uu ku nool yahay arrimahaas waa laga maarmaan marka inaad yareysid haddii ay noqoto canjeeladii sida waa soo qasay haddii aad noqotid waxyaalaha kale ee dadkeena u badan yihiin yaree laakiin xoogga waxaa saartaa cuntooyinkan micronutrientska ah ee vitaminka iyo mineralska laga helo inaad xoogga saartid sababta waxa waaye waxay ka hortagaan in xanuunkii uu mataqaana jirkaaga uu ku dhaco ilaahay ayaa wax ilaaliyay laakiin ilaah subxaanahu wa tacaala sabab ayuu yeelay waxay ka hortagaan in mataqaana jirkaaga uu deficiency vitaminka uu u baahnaa uu hoos uga tago waxay kor u qaadaan vitamin A gaaga iyo vitamin C gaaga iyo vitamin D gaaga ayay kor u qaadaan waxay awood siiyaan cellskaaga inay isdifaacaan oo xanuunada ku dhaca ay ka hortagaan waxay awood u leeyihiin in mataqaana xanuunada sida cholesterolka ama macaanka ama mataqaana dhiigkarka waxyaalahaas oo dhan ay ma garanaysaa ay ka hortagaan marka waxaan xooga ku saaraynaa cunto walba aan cunayno in micronutrientska aan badino sababtoo ah waxa lagu gartaa cuntada markay caafimaadka leedahay qaybtan hoose ayaa u badan qaybtan korona way ku yartahay marka insha Allah casharkan waa cashar u qalma 2 saac 3 saac in la bixiyo laakiin maadaama waqtiga aan saas ugu talagalno waqtigan uu iska yahay waxaan rabaa intaas inaan ku joojiyo waxaan rabaa casharka in dadka kale walaalaha aad la wadaagtaan inta aan mar kale iska arki doono waxaan ka tagay sidaas iyo salaanta islaamka wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh